دكتور ذاكر waa uu cadeeyay arinta hadda waana aqbalayaa waana ku waafaqsanahay maxaa yeelay ma ahi Kirishtaan anigu waxaan ahay qof rumaysan inay lagama maarmaan tahay inuu Ilaah jiro sida teleefankaanba uu u jiro oo ay lagama maarmaan u tahay in la helo qofkii sameeyay hadaan la heli lahayn qofkii sameeyay caalamkaba lagama heli lahayn teleefankan isla tusaalaha anigu Ilaahay waan rumaysanahay laakiin diin ma haysto sida Dr. Zakir oo yiri diin kasta ama cibaado kasta oo aan islaamka ahayn waa dambi laakiin sideed igu qancinaysaa aniga oo ah wiilkan dhalinyarada ah in diinta saxda ay tahay oo kaliya islaamka adinkuna waxaad leedihiin asxaabta diimaha kale waa ay qaldan yihiin ayaguna sidoo kale sidaas ay idin dhahayaan arintaasina diimaha oo dhan ay ka dhex jirtaa walaalka su'aal wanaagsan ayuu na weydiiyay magaciisuna waa magac qof Kirishtaan ah oo kale hadaan si wanaagsan u maqlay laakiin Kirishtaan ma aha wuxuuna sheegayaa inuu Ilaah rumaysan yahay isla fikradda ah helitaanka teleefanka macnaheedu inay tahay qofkii sameeyayna in la helayo sida darteed waxa laga maarmaan in uu jiro khaaliq wax abuura aad bay u wanaagsan tahay alxamdulillah arinta waan kaaga tahniyadeynaya laakiin si wuxuu na weydiinayaa sideed iigu sugaysaa inay waajib tahay in aan raaco islaamka oo kaliya waa su'aal aad u wanaagsan walaalkayga islaam waa kelimad carabi ah laga yaabay macnaheeda inaadan garanayn sida darteed iska daa macnaha carabiga ah oo aan dhinac iskaga tuurno waxa haboon inaan raacno waxa weeye wuxuu Allah ku leeyahay suuratu al-imraan suurada 3 aayada 19 diintu alle agtiisa waa islaam diinta kaliya ee laga aqbalayo alle agtiisa waa diinta islaamka waana nabad lagu kasbanayo uquduucinta aad u quduuciso doonistaada alle subhanahu wa ta'ala hadii aad rumaysan tahay inuu Ilaah jiro oo aadan rumaysnayn diin marka macnaha diintu maxay noqonaysaa diin macnaheedu waa in la rumeeyo inuu Ilaah jiro sida darteed hadii aad rumaysan tahay alle oo aadan rumaysnayn diin arintaasi waa isburin qaamuuska ama dictionary-ga Oxford diin macnaheedu waxa weeye in la rumeeyo jiritaanka awood weyn ama Ilaah mudan cibaadada hadii aad rumaysan tahay jiritaanka Ilaah arintaasi waxay keenaysaa inaad adeecdo sax mise qalad waa arin kale oo ka duwan laga yaabay adigu inaadan ogeyn kitaabkeeba ah kitaabkii alle sida darteed hadii aad rumaysan tahay inuu Ilaah jiro ma doonaysaa inaad adeecdo awaamirtiisa mise maya ha ama maya dhabahan waa rumaynaya laakiin waxa waajib marka hore inaan qanco waan kugu waafaqsanahay arinta laakiin waxa kugu waajiba inaad allaha khaaliqa ah adeecdo inta oo dhan ka hor waxa kugu waajiba inaad ogaato waxa uu yiri qaaliqu sax idan hadda walaalku wuxuu rumaysan yahay inuu jiro Allah wax abuura ayna waajib ku tahay inuu adeeco Allahaasi wax abuura isku mid waa waxa uu alla leeyahay wadada kaliya ee nolosha laga aqbalayo alla agtiisa waa ugu quduucinta doonistaada aad u quduuciso Allah laakiin maxaad ugu quduuci doontaa waa su'aal kale oo ka duwan eray bixinta muslim ama islaam macnaha kelimada muslim waa shakhsiga u quduuciya doonistiisa Allah oo caabuda hadii aad u quduucido doonistaada Allah luqada carabiga macnaheedu waxay tahay inaad tahay muslim ku magacaabida naftaada Daakir ama Abdullaahi ama Suldaan arintaasi muslimka ma dhigayso hadii aad tiraado magacayga waa Daakir taasi kuma filna inaad muslim ku noqoto hadii midkood dhaho kani magaciisu waa Muhammad taa macnaheedu ma ahan inuu yahay muslim macnaha kelimada muslim waa shakhsiga ku xasiliya ee ku helan nabad u quduucida iyo yeelida amarada alle hadda waxaad doonaysaa inaad ogaato sidee quraanku ku yahay waxa kaliya ee alle naga doonayo inaan ku caabudno isaga sax sida darteed waa inaad daawataa muhaadarada halil quraanu kalaamullah quraanku ma hadalkii Allah midaasi oo ku dhax sugayo si cilmiyan ah inuu kani yahay hadalkii alle allaha aniga iyo adiguba aan rumaysanahay waa allaha aniga iyo adiguba aan rumaysanahay isla kan quraankan ayaa ah hadalkii alle sida darteed daawo muhaadaradeyda taas oo soconaysa ku dhawaad 4 saacadood anigu ma awoodo inaan soo gudbiyo muhaadaro kale oo soconaysa 4 saacadood hadda waxaana ku suurtagal bari inaad imaato shariica macnaheedu waa qaanuunkii Allah sharciga Allah qaanuunullaahi hamajiyun am mithaali hadii aad muhaadaradaas dhageysato oo qayb ka qanacdo si aad u hesho jawaabta oo kaamil ah daawo muhaadarada quraanku ma hadalkii Allah halil quraanu kalaamullah إن شاء الله waad ku qanci doontaa in islaamku yahay dariiqada kaliya ee saxda ah muhiimadna hasin
musdalaxaadka carabiga. Ha fiirinin dadka aan diinta raacsanayn, hana ku xukmin islaamka waxa ay dhahayaan dadka raacsan ee atbaacdiisa ah. Haddii aad rabto inaad gaari qiimeyso, haddii darawalku uusan darawalnimada ku fiicnayn isla markaana uu gaari kale ku dhufto gaariga, qofka la ceebeynayo ma darawalka mise gaariga? waa darawalka. sidaa darteed ha ku xukumin islaamka waxa ay muslimiintu sameynayaan, balse ku xukum islaamka waxa ku sugan quraanka dhexdiisa. haddii aad doonayso inaad gaari qiimeyso, adigu markaas waxaad fiirinaysaa katoolijka iyo imkaaniyaadka gaariga, ammaannimadiisa, speedkiisa iyo degdegiisa iyo waxyaabo intaa la mid ah. ama inaad darawalka ka dhigto darawal muxtarif ah oo si fiican u yaqaano wadista gaariga. sidaa darteed haddii aad doonayso inaad aragto bashar quraanka matalaya, tusaalaha iyo miithaalka ugu wanaagsan waa nabigii nebiyada iyo rususha ugu dambeeyay Muhammad sallallahu alayhi wasallam. sidaa darteed haddii aad doonayso inaad aragto bashar quraanka matalaya, tusaalaha iyo miithaalka ugu wanaagsan waa nabigii nebiyada iyo rususha ugu dambeeyay Muhammad sallallahu alayhi wasallam.